qaatimo fiican haddaad ku dhimato kaasaa qabriga laguugu geyn war camal xun oo sayi haddaad ku dhimataa qabriga lagula geynaya war qof walba waxay gebagabadiisu tahaa lala aasaa in badan aan ku mashquulna taacada ilaah subxaana wa tacaala wax badan shaydaanka aan iska ilaaliniyo zalalkiisa war wax badan aan iska ilaalino islaamnimada aan qaadano waayo barsaqa mar allaala marka la tago waa xayaato jadiid ah waa caalam cusub oo aan horay u arkin kaaga sii daran qof kula joogaa ma laha caalamkan hadda aan ku noolnahay waa kii adduunka ka qabrigaa la aadi doonaa oo la gelaya kii aakhiraasa loo soo bixi doonaa saddexdaa marxaladood ayaan mari doonaa marxaladan waan u jeednaa oo qof walba indhuhu saaray middaa labaad ee la aadi doona waa mid anaga qayb naga ah waxaa noogu dambaysa marka ciidda lagu rogo qofkoo laga soo tago waxaa noogu dambaysa mar allaala marka laga soo sahay qaato oo alaabtii lagu geeyey laga soo aruursado waxaa noogu dambaysa mar allaala marka qabriga bannaankiisa looga duceeyo waxaa noogu dambaysa mar allaala markay ummaddu dhaan ha layska cafiyo wixii ka dambeeya waa asaga iyo rabbi subxaana wa tacaala maxaa rabbi u hormarsanay subxaana wa tacaala qabrigase maxaa loo shaqaystay inuu nebigu dul istaagay buu yidhi limithli haada falyacmal ilcaamiluun war saanoo kale dadka shaqay ha u soo shaqaystaano war meeshaan ha loo soo shaqaysto qofkii shalay nala socdaa ciidda hoosteeda looga soo tegay tii lacagta lahayd baa la soo aasay kii xoolaha badnaabaa ciidda lagu soo rogay wax meesha looga soo tagaa wax laga tegaayo ayaan markaa jirin laakiin khaatimo fiicanaa lagu dadaalaa war khaatimada sayidaa qabrigaa laysugu ciriiriya xumaanta qofka badiya qabrigaa lagu ciqaaba caalamka noocaasa waa caalam aad iyo aad u muruga badan war dadku way ka indhala yihiin waxyaabo fara badan oo qaybkuu ka mid yahay haddii dadka iimaanka leh ay yihiinna dadka waxaa lagu tilmaamay yu'minuuna bilgayb inay qaybka rumeeyaan qabriga waxa ka dambeeye ku hoos jira ayaa markaa ugu horeeya